السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa dad lagu tilmaami karo geesiyaal dhaba kuwaas oo halis u galiyay naftooda si ay u badbaadin lahaayeen naf kale. bishii Oktoobar sanadkii 2014 waxa uu dab ka kacay guri uu deganaa oday aad u da'weyn manuu awoodin odaygu inuu ka baxsado dabka ilaa uu rajo beelay uuna u maleeyay inuu ku dhex dhiman doono dabka dhexdiisa. ninkan odayga waxa lagu magacaabaa Robert wuxuuna jiraa 73 sano wuxuuna xanuunka ka dhacay nidaamka neefsashada waana ta ka dhigtay inuu isticmaalo mar walba nidaam neefsasho oo gacan ku samaysa waxayna ka dhigtay taasi inuu awoodi waayo inuu dhaqaajiyo jidhkiisa uuna ka baxsado dabka. muuqaalkan waxa duubtay gabadh ku qaylinaysay qof ayaa ku dhex jira guriga waxaana si kadisa uga soo dhex muuqday nin ka tirsan kooxda dabdabiska oo u dhowaanaya dabka ilaa uu markii dambe hore u galay gurigii. mar labaad ayuu soo muuqday ninkii geesiga ahaa isagoo xambaarsan oo sida odaygii ku jiray guriga oo uu ku guuleystay inuu ka soo badbaadiyo dabka. dabkii wuxuu gabi ahaanba baabiiyay gurigii Robert iyo gurigii ku xigay ee jaarka la ahaa. ninkan geesiga ee badbaadiyay odayga wax lagu magacaabay Thomas Artiaga wuxuuna sheegay inaanu danaynin in loo aqoonsado geesi uuna sidoo kale dhowr jeer ka dhuntay kamarada horteeda si aanay u duubin kamaradu. waxa lagu marti qaaday ninkan barnaamijyo dhowra oo loogu mahadnaqayo laguna abaal marinayo hawshii geesinimada lahayd ee uu ku kacay. ninkan waxa lagu magacaabaa Darnell Barton wuxuuna ka shaqaynayay shaqada darawalnimada muddo 3 sano ah. maalin maalmaha kamid ah wuxuu la kulmay dhacdo aan weligii maskaxdiisa ku soo dhicin inuu la kulmi doono. bishii Oktoobar sanadkii 2013 waxay duubtay kamarad ku dhagsanayd gudaha baabuurku gabadh taagan dhinaca midig ee wadada. gabadhani waxay taagneyd koonaha wadada waxayna isku dayeysay inay disho nafteeda laakiin Darnell si degdeg ah ayuu uga degay gaadhigii wuxuuna qabtay gacantii gabadha wuxuuna u soo dhaqaajiyay dhinacii amniga ahaa ee wadada wuuna fadhiisiyay. kadib markuu waraystay waxay u sheegtay inay doonaysay inay nafteeda disho wuxuuna sheegay ninkani intaa kadib inuu bilaabay inuu waaniyo gabadha yar iyo inuu ka masaxo fikradan xun maskaxdeeda sababtoo ah waxay ahayd gabadh aad u da'yar oo da'deedu ayna gaadhinba 20 sano. wuxuu ku guuleystay ninkani in la guddoonsiiyo shahaado sharaf iyo $10,000 oo uu siiyey madaxweyne Donald Trump. wuxuuna sheegay ninkani inuu ku rajo weeyay inuu hadalkiisii caawiyay gabadhii yarayd mar dambena ayna ku fikiri doonin inay sidan ku samayso nafteeda. sanadkii 2004 xabsi lagu magacaabo Tambekodi dhexdiisa waxa uu ku kacay maxbuuskan oo lagu magacaabo Douglas da'diisuna tahay 43 sano inuu weeraro nin askari oo da'diisu ahayd 64 sano laguna magacaabay Kenneth iyadoo aan la garanayn sababta dhabta ah ee uu ku weeraray. haddana wuxuu ahaa weerar halisa wuxuu bilaabay Douglas inuu ceejiyo askarigii waxayna sababi kartay ceejintaasi inuu u dhinto ninka askariga. waxay duubeen kamaradaha xabsigu in qaar badan oo maxaabiistii kamid ah ay u yimaadeen si ay u caawiyaan askariga ugana badbaadiyaan cadowgan soo weeraray. waxayna bilaabeen inay ka furfuraan halka mid kamidana uu ka wacay kooxdii badbaadada telefoonka si ay u badbaadiyaan askarigan. ninkan maxbuuska waxa lagu soo xidhay dambiye ah in lagu qabtay daroogo iyo in lagu tuhmay dilal. ninkan askariga wuxuu ahaa mid nasiib badan wuxuuna nasiib u yeeshay inay badbaadiyaan maxaabiistii ku jiray xabsiga uu waardiyaha ka ahaa. wuxuuna sheegay ninkan askariga inuu rumaysan waayay waxa dhacay. bishii July sanadkii 2014 nin hubaysan ayaa wuxuu soo galay jaamacad wuxuuna dilay hal qof wuxuuna dhaawacay 2 qof oo kale xilli uu isku dayay inuu cabeeyo hubkiisa. mid kamid ah ardayda oo lagu magacaabo John Mees ayaa awooday inuu ku soo boodo oo dhulka ku tuuro ninkii dilaaga ahaa. ninkan dilaaga waxa lagu magacaabaa Aaron wuxuuna jiraa 27 sano wuxuuna awooday ardaygii inuu ka qaado qorigii uuna ka baxsado meesha. markii uu soo qariyay qorigii ayuu ku soo laabtay meeshii si uu u qabto ninkan dilaaga uguna dhiibo booliska laakiin ninkan dilaaga waxa jeebkiisa ku jiray midi wuxuuna awooday ardaygii geesiga ahaa inuu qabto ka hor inta aanu adeegsan midida. markii la qabtay ninkan dambiilaha wuxuu sheegay inuu ku faanayo waxa uu sameeyay weliba uu ku raaxaysanayay dilka qofkii koobaad. waxa lagu xukumay xabsi ah 112 sano waxaana lagu sharfay ardaygii geesinimada uu muujiyay iyo inuu awooday inuu ka badbaadiyo ninkan dilaaga dhammaan dadkii kale ee ku sugnaa goobta. bishii May sanadkii 2018 ninkan dhalinyarada oo ku soo galay wadanka Faransiiska qaab sharci darro ah da'diisuna tahay 22 sano
waxa awooday inuu ka badbaadiyo wiil yar dhimasho. wiilkan yar oo da'diisu ahayd 4 sano wuxuu ka soo laalaaday daaqada dabaqa ay deganaayeen reerkoodu. waalidkiina keligii ay kaga tageen guriga. lama garanayo sida uu wiilkan yar ku awooday inuu u soo karo daaqada uuna ka soo gudbo muraayada balakoonka. waxay duubtay kamaradu ninkan isagoo raacaya muraayada dabaqa ilaa uu ka gaadhay dabaqii 4aad oo ahayd halka uu ka soo laalaaday wiilka yari. wuxuu halis u geliyay ninkan dhalinyarada naftiisa si uu u badbaadiyo wiilkan yar ee xitaa aan garanayn magaciisa. waxay sidoo kale duubtay kamaradu jaarkii guriga ilmaha yar deganaa oo isku dayay inay soo dejiyaan ilmaha yar, laakiin waxay qaadatay waqti dheer ilaa uu ka yimid ninkan dhalinyarada uuna badbaadiyay wiilkii yara. intaa kadib waxa uu la kulmay ninkii dhalinyarada madaxweynaha Faransiiska, wuxuuna uga mahad celiyay hawsha geesinimada leh ee uu qabtay. waxaana la siiyay guri u gaara, shaqo iyo shahaado sharaf.